dalada haweenka ee xanaqaad ee magaalada Laascaanood ayaa maanta bilowday qaybinta agab guryeed ay u qaybinaysay dadka barakacayaasha ee danyarta ku dhaqan magaalada Laascaanood. tiro gaaraysa 750 qoys ayaa ay gaaraysa qoysaska ka faa'iideysanaya deeqdan agabka ee qaybinayso dalada haweenka ee xanaqaad isla markaana ay ku deeqday hay'adda MBA ee fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood. مسؤولينta dalada hawsha wada ee xanaqaad iyo hay'adda MBA bixisay deeqdan ayaa ka warbixiyay barnaamijkan iyo sida ay ugu tala galeen in ay u qaybiyaan. waxa lagu qaybinayaa NFI alaabtaas oo ka kooban aytamo badan waxaana loo qaybinayaa 750 qoys oo isugu jira dadka barakacayaasha iyo dadka deegaanka u dhashay ee danyarta waxa bixisay oo fangareysay hay'adda MBA waxaana fulinaysaa xanaqaad mana aha maalintii ugu horeysay ee MBA bixiso mashruuc kan oo kala in muddo badan bay bixinaysay ilaa 2010kii sanadka u yartay laba jeer ayaa wax loo qaybinayay dadweynaha insha Allah horena inuu socotaa laga yaabo waxa kale oo dheer oo taas ay barbar wada hay'adda MBA mashaariicda ay la fuliso xanaqaad kamid ah tareerino kor loogu soo qaadayo dadka aqoontooda sida capacity building fast training oo sanitation oo la barayo dadka IDPS ka iyo dadka host community dadka bulshada deegaanka sidaad wada aragtaan maanta halkan waxa ka socda mashruuc loogu magacdaray distribution of non items for the IDPS gobolka Sool mashruucan waxa maalgeliyay hay'adda MBA Norwegian Business Aid xafiiskeeda Laascaanood fulintiisana waxa loo xilsaaray ururka wadaniga xanaqaad women organization mashruucan ma aha markii koowaad markii labaad markii saddexaad ma aha waa mashruuc soconay sanadihii ugu dambeeyay waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo dadka barakacayaasha MBA wax qabadkeedu inta kaliya kuma koobna sidaad ogtihiin mashaariicaha kale aan qabano dhinac socda waxa kamid ah mashaariicaha biyaha lagu qodayo ceelasha biyaha dhulka deegaamada waxaan hadda insha Allah sanadkan ugu jira mashruuca aan qabanayno laba ceel oo boorbool ah ceelashaas oo insha Allah laga qaban doono Arooley iyo Saaxleer waa waxyaalahaas oo ka MBA insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inaan sii wadno caawinta community ururka xanaqaad si fiican baa dadka nololis وانا mahadsan kuwii loo keenayna ma aha markii ugu horeysay oo iyagoo iskaashanaya xanaqaad iyo MBA ay danyarta iyo barakacayaasha ku dhaqan magaalada Laascaanood ay u qaybiyaan agab noocan oo kala ah. Cabdiqani Ismaaciil Goox, Somsa TV, Laascaanood.